شيك قدوبتي warku gaaray dariskee goynyaha magaalada dadku ugu garamayee laaqiya waagadeedii laaqiya waagadeedii laaqiya waagadeedii laaqiya waagadeedii sidada noo gelaysaa kulli wadaag ku racano dafka nooga kaayimi iyo godobi kugu maqan laaqiyay kulli godobi kugu maqan laaqiyay kulli godobi kugu maqan gariyo xariiqi nabsigii aad ku raato soo maraa gurgurtay waxaad galabsataa iman laaqiyaad galabsatay laaqiyaad galabsatay laaqiyaad galabsatay laaqiyaad galabsatay kayan labo istorto kulla reer ka dhigaybaad soo gabagabayso kurigoodii dumisay laaqiyay kurigoodii dumisay laaqiyay qaybtii hore laaqiya iyo nuurkii jacaylka kayan labo istorto kulla reer ka dhigaybaad soo gabagabayso kurigoodii dumisay laaqiya maxkamaddu way noo furan tahay dhibbana xeeraalinta gobolka faafan eedaysanaha koowaad faadumo saleebaan cali eedaysanaha labaad mooge warsame cabdi galkan wuxuu u muddaysnaa maanta ay taariikhdu tahay 15 bishii 10aad 2009 in ay maxkamaddu ka soo saarto go'aan kadib markii ay soo baadhay waxay maxkamaddu ka soo saartay go'aankan galkan waa gal dacwadeed ciqaaba oo dhageysiga heerka koobaad ah wuxuuna maxkamadda sare ee gobolka faafan ka furmay 5tii bishii 7aad 2009 waxaana labada eedeysane lagu soo eedeeyay in ay galeen faldambiyeed dhanka ah korinta caruurta haddaba kadib markii ay maxkamaddu baadhis ku samaysay cadaymaha galka ku jira lana eegtay sharciyada khuseeya waxay ka soo saartay go'aankan sida ku cad xaashida eedda xeerlaalinta gobolka faafan ee ku taariikhaysan 1dii bishii 7aad 2009 sumadeeduna ay tahay GBO 315/9 labadan eedeysane waxaa lagu soo eedeeyay in ay ku xadgudbeen qodobka sharci
659 xeerka dambeeda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya ee soo baxay 2005 eedeysanada koowaad oo ah hooyada guriga uu ku nool yahay wiilka yar ee la yiraahdo Cabdifataax Mooge daadiisuna ay tahay 10 jir waxa ay u geysatay xadgudubyo fara badan oo ay ka mid yihiin jirdil dhaawac maskaxeed ka mamnuucid waxbarasho iyo ku adoonsi shaqo una kareynin eedeysanaha labaad oo ah aabbaha wiilka yar wuxuu gabay inuu ka warhayo uu ogaado xaaladda uu ku nool yahay wiilkiisa yar sidaas darteedna wuxuu si kama ah u gudan waayay waajibaadkii waalidnimo ee ka saaraa ilmihiisa yar haddaba kadib eedeysanayaasha waxaa loo dhowray xuquuqdii qareennimo waxaana maxkamaddu guda gashay galkan qareenkooda oo jooga kadib markii loo akhriyay xaashida eedda labadaas waxay sheegeen in aysan qabin faldambiyeedkan kadib maxkamaddu waxay u diiwaan gelisay dambi la'aan bay u diiwaan gelisay sida ku cad qodobka 133 habka xeerka ciqaabta Itoobiya waxayna maxkamaddu ku amartay xeeraalintu inay soo dhaweysato cadeymaheeda sida uu dhigayo qodobka 139 habka xeerka ciqaabta Itoobiya kadib xeeraalintu waxay soo dhaweysteen 3 makhraati oo kala ah Ubax Cabdi Xasan da'deedu 35 jir laba Cabdillaahi Axmed Ducaale da'diisu 70 jir degan xaafadda lixaad shaqo wada dhaqmeed 3 Axmed Sheekh Cabdinuur da'diisu waa 37 jir degan xaafadda lixaad kadib markii la dhaariyay maragadaasi waxay maxkamaddu dhageysatay 15 bishii 7 2009 waxayna fureen sidan maraga koowaad oo ah hooyada ilmaha yar waxay sheegtay inay qurbaha ku nooshahay kadibna inay maqashay in wiilkeedii yaraa uu dayacan yahay ay una timid isaga dartiisa ay u aragto xaaladda uu ku nool yahay kadib markii ay aan wiilkeygii aan damcay inaan booqdana waxaa ii diiday labada eedeysano inaan arko kadib saasaan ugu dacwooday hay-adaha cadaaladda kadib markii la itusay wiilkii yaraa waan qaracmay markii aan arkay xaaladda duruufeed uu ku nool yahay sida uu u nool yahay iyo waxbarasho la'aantiisa markaan dalka imid aabbaha inuu ituso ilmaha ayaan ka codsaday wuu ii diiday saasaan ugu dacwooday hay-adaha cadaaladdu markii ay ituseen ilmihiina waan qaracmay ilmihana waxaana ogaaday oo dadkii dariska ii sheegeen in jirdil lagu sameeyo in jikada la seexiyo in biyaha lagu dhaansado in ilmahaas waxbarasho aan la geynin dhibaatadiina way ka muuqataa kadib maragga labaadna wuxuu maxkamadda u sheegay in wiilka yar ay guriga uu ku nool yahay uu daris la yahay indhihiisana uu ku arkay isagii oo la dilayo isagii oo biyaha lagu dhaaminayo isagii oo jikada la seexinayo isaga oo maskaxda laga gumaysanayo maskaxda laga dilayo oo lagu adoonsanayo shaqo uunan maartay uuna awood u lahayn maragga saddexaad isaguna wuxuu sheegay inuu daris la yahay xaafadda uu ku nool yahay ilmaha yar isaguna wuxuu sheegay jirdilkaas iyo xadgudubkaas uu maragga labaad uu sheegay haddaba intaa kadib markay maxkamaddu dhageysatay maragyadii xeeraalinta waxay go'aamisay in ay markhaatiyaasi ka gudbi karaan qodobka 141 waxayna ku amartay eedeysanayaasha in ay soo dhaweystaan haddii ay haystaan maraggooda difaac kadib qareenka eedeysanayaashu waxa uu maxkamadda u sheegay in aynan haysanin wax marag difaaca ama cadeymo difaaca oo ka baxsan qaalka eedeysanayaasha wuxuuna maxkamadda ka codsaday sida uu dhigayo qodobka 142 habka xeerka ciqaabta Itoobiya in maragyada loo dhageysto istifaacooda oo iyagu istifaacayaan afkooda iyagu qaalkooda isku difaacayaan maxkamadduna way ka ogolaatay kadib eedeysanada koobaad waxay sheegtay ilmahan yar faldambiyeedkaas iyo waxyaalaha la sheegayo sibuu wax uga jiraa waxaana ii geeyey hinaase aan ku hinaasanaa hooyadii oo la ii sheegay inay aabbihii isku noqonayaan waxaa kaloo ii geeyey isagoo caruurta u weyn oo aan u dirsanayay
qooshka inuu ii garaaco maadaama carruurtayda kale ay yaryar yihiin shaqaalana aana haysanin inuu qooshka ii garaaco si aan reerku ugu baahanin cid kale oo shaqaala ah arrintaasina waa arrin aan ku khaldanaa haddana waan iska saxay waxaan maxkamadda ka codsanayaa in arrintaas saas la igu tixgeliyo eedaysanaha labaad wuxuu maxkamadda u sheegay in uunan ogeyn jirdilkaas iyo dhibaatadaas iyo maskax dilkaas lagu hayay wiilkiisa kabacdi markii aan ogaadana waxaanu ku kala tagnay xaaskaygii oo aanu halkaas maxaan ku idhahday aan hawshii anigu aan waajibaadkayga ku gutay haddaba maxkamaddu sida ku cad qodobka 143 si ay go-aan cadaalad uga soo saarto waxay amar ku bixisay in wiilkii yaraa la soo dhaweeyo oo ay maxkamaddu wax weydiiso waana la soo dhaweeyey kadib maxkamaddu iyadii oo raacaysa sharciga u yaala xeerka carruurta ayay si gaara u wareysatay meel ka baxsan booliska iyo dadka ka baxsan maxkamaddu si gaara carruurta loogu talagalay iyo u soo wareysatay wuxuuna u xaqiijiyey waxyaalaha lagu soo eedeeyay labada eedeysane ee korinaya gacanta ku hayay dhibaatada ay u geysteen ayay maxkamadda u xaqiijiyey kadib maxkamaddu markay dhageysatay cadeymaha labada dhinac isla markaasna ay aragtay garaalka eedeysanayaashu ay qirteen kolkii dambe soo jeedintii dambe ay ku qirteen in ay faldambiyeedka u geysteen waxay maxkamaddu go'aamisay in ay labada eedeysane dambiilayaal yihiin kuna xadgudbeen sharciga qodobkiisa 659 xeerka jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya ee soo baxay 2005 kadib maxkamaddu markii ay dambiilnimadooda ku dhawaaqday waxay ku amartay xeeraalyuhu in uu soo jeediyo fikirkiisa ku saabsan ku wajahan ciqaabta kadib marka koowaad wuuna soo jeediyey wuxuuna xeeraalyuhu yidhi labada dembiile dembiga ay galeen waa dembi weyn oo xadgudub ku ah sharciga iyo ilmaha yar ay dembiga ka galeen waxayna sameeyeen sharci jabin waxayna ku xadgudbeen ilmaha yar xuquuqdiisii waxbarashadiisii iyo koritaankiisii ilmihii yaraa iminka si uu la qabsado bulshadaba ma karayo saas ogeed maxkamad waxaanu ka codsanaynaa in naloo culaysiiyo dembigooda nalagu ciqaabo qodobkaanu ku soo eedeynay waxa uu dhigayo kadib qareenka labada eedeysanaa wuxuu soo jeediyey maadaama ay gacan siiyeen cadaaladii oo ay qirteen faldambiyeedkii maadaama ay qoomameeyeen maadaama ay awlaad kale leeyihiin oo haddii la xidho awlaadda noloshoodu ay khatar gelayso oo iyaga laftigooda u baahan in xuquuqdooda la ilaaliyo maadaama ay dad waalid ay yihiin maadaama ilmahoodii ay adeegsanayeen uu yahay oo iyagu waxaan u geystay adeegsa ilmahooda adeegsanayeen uu yahay waxaan maxkamadda sharafta ka codsanayaa in xukunka loo fudaydiyo labada dambiile ama lagu xukumo ganaax lacageed oo fudud saas isaguna soo jeediyey sidoo kale xeerlaalyuhu wuxuu maxkamadda ka codsaday in wiilka yar maadaama ay ku xadgudbeen labadan dambiile in lagu wareejiyo hooyadiis isagoo oo la eegayo xuquuqdiisa iyo dantiisa isagoo la eegayo kadib qareenka labada dambiilena wuxuu soo jeediyey maadaama gabadhan wiilka hooyadiisa uu nin kala qabo oo dibadda joogaa isla markaasna ninkaasna uu yahay ninaan dhaqankiisu fiicnayn iyo akhlaaqdiisu ay dhicna karto ilmahaasi inuu ku halaabo dhaqan ahaan iyo diin ahaanba inuu ka halaabo waxaan maxkamadda sharafta ka codsanayaa in laga daayo ilmahaas annagana loo daayo maadaama annagu aanu soo korsannay qoomameynana wixii horeen u geysanayna aanan kula noqonaynin kadib arrintaas si loo xaqiijiyo maxkamaddu xaqiijiso waxay maxkamaddu amartay oo warqad u dirtay xafiiska qurbo joogta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya si ay ninkaas gabadha qabo wiilka hooyadiia uga keenaan warbixin ku saabsan akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa kadib xafiiska qurbo joogtu isagoo la kaashanaya jaaliyadda deegaanka ee waddanka degan ku nool yahay Ingiriiska ayay waxay ka keeneen warqad bay ka soo qoreen ay kaga sheekeynayaan akhlaaqdiisa iyo warbixintiisa ay ku sheegayaan inuu ninkaasi yahay nin mas'uul noqon karaya oo lagu kalsoon yahay oo xilkas ah nin dhaqankiisa iyo dabeecadiisuba ay wanaagsan tahay kadib maxkamaddu waxay qaadatay warbixintaas xafiiska qurbo joogtu uu ka soo bixiyey ninkaas kadib maxkamaddu markii ay dhageysatay
cadeymaha dhinacyada isla markaasna ay aragtay sharciga kadib maxkamaddu waxay ku xukuntay dambiilaha koobaad Faadumo Saleebaan Cabdi xarig fudud oo dhan 2 sano iyo 6 bilood oo xarig ah oo looga soo bilaabayo maalinkii gacanta lagu dhigay hase ahaatee maxkamaddu waxay xukuntay inay 1 bil ku jirto xabsiga jeelka ku jirto ka bacdina maadaama ay caruur kale ay jiraan oo caruurtaas in la daryeelo ay muhiim ay tahay waxay maxkamaddu go'aamisay inta dambe in loogu bedelo lacag ganaax ah oo dhan 7,000 oo bir markii ay ku jirto weeyaan hal bil markii xabsiga ku jirto ay dhadhamiso ciqaabtaas dambiilaha labaadna maxkamaddu waxay ku xukuntay sanad iyo 8 bilood oo xadhig ah ama 4,000 oo ganaax ah oo lacag ah waxaa kaloo ay maxkamaddu go'aamisay ay xukuntay sida uu dhigayo maxkamaddu iyadoo raacaysa qodobka 569 xeerka dambiyada Itoobiya ayay go'aankaas gaadhay kadib maxkamaddu iyadoo eegaysa qodobka 36 xarafkiisa saddexaad ee dastuurka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya iyo xeerka caalamiga ah ee United Nationska oo ah daryeelka xuquuqda carruurta qodobkiisa saddexaad xeerkaas oo soo baxay 1989kii Itoobiyana dhinac ka noqotay iyadoo eegaysa xeerka xuquuqda carruurta daryeelka xuquuqda carruurta ee caalamiga Afrika qodobkiisa afraad iyadoo eegaysa qodobka 36 ee dastuurka deegaanka Soomaaliya Itoobiya ayay maxkamaddu waxay go'aamisay iyadoo eegaysa danta ilmaha yar in ilmaha yar Cabdifataax Mooga Warsame laga bilaabo maanta in hooyadii lagu wareejiyo ayay maxkamaddu go'aamisay amar loo qoro warqad xukun fulin ah xabsiga dhexe ee dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya cidii aan ku qancin go'aankan waxa uu furan racfaan lagu wareejiyo ilmaha yar hooyadiis galkan waa la xidhay waxaana lagu celiyay xusuus dhowrka maanta ay taariikhdu tahay 15kii bishii 10aad 2009 سلام في المال. في عن حبيبي. هذا سفر دي. السوق تقول هذا ما. حبيبي أنا كل راجع أنت شقتك تكون مودي ما شقتي. ما حتى نسلا تسيك أنا حتى ما تنسلا. أبغى ما قلنا أنت جندي. والله. قرعنا كود ياري ما ندرك. وين قرعنا. واحد حبيبي كل راجع. سوق وان كاي مداي. ما أنت هو يدي بانرك. ما هو يدا. هو يدي. هاي. دان أركينا. شد كانوا سكوا صور بحنا. هاي. أرن بين إلى تمت. أرن محيطي ما هو يدا بقى أنت أركتي ولي من أرن كولتي. ده وحبا الله بصداي أركون في عين في ورما يصير محل بوليس أو. وحبا ما وصلنا إني ما هو أنت أركتي ولي من أرن كولتي من أرن بيلتي من النلبة. ده وحوا أرن كو أرن في عين بدك يصير تدرت. ويدا أرن بدك يصير ويدا أرن في عين بك ميمات. وهذا أنا نقول بلنتي نوات كبحذي. حبيبي السيدة إنكم مودين بلنتي إنه تهليو ويدا سأنا أكتبي ناقشي. وارده هبسي محل بالا سيستم اللي سكبوا داو. أنا ساسي نوكر لما تدبنا كوسون. واربل واح في عنا دقيسو. وار أحمد. أحمد. وحو يا ما نقطعي. تي صامر تبي أوجايو. وحسلي هاي ما أنت أنا هذا الكي هو يدك بكوسا مقش. هو يدي نشتك كقد دقاقي. أو كقد صار دقاقي. مية أوجي هيبة حان سمايا هذا الكيني يجموس سجن واحد صوت تاني ما بقى جبا حان سمايا ما قرني والله بالأب هي مات. Sorry, the subscriber's phone you have dialed is switched off. أيه مو بحين بقول مدرسة تلفونك. كان سبلا أبا هي انقرأ. هلو. هلو. بس هاي. ما في أنا أبي ورن. ما في أنا أبي. ما في أنا أبي مريني. waxaan rabaa abayna diid timaado arrin baa jire ama wax baa soo kordhay
ولا بس دقدق قولي يقول كالي هيا أبوني من إن شاء الله فاهم هيا بمع بلا صودا ينسوا دخس markay sheeka gudubtee warku gaaray dariskee goonyaha magaalada dadku ugu garnamayeen laaqiyo waagadeedii laaqiyo waagadeedii laaqiyo waagadeedii laaqiyo waagadeedii sidaada noo gelaysaa kulli wadaag ku racano dafka nooga kaa yimi iyo godobi kugu maqan laaqiyay